sheekada la leeyahay igu sawir halka ay ka soo bilaabatay halka ay ku socoto dhageystayaal badan aad dareynaya dad waxay leeyihiin hadalhaynta baraha bulshada ma sax ah ma arrin kala jirta ilka casib alcaawa hanaga dabageeya dalsano jooga maxamed xasan jabaan iyo dhageystayaal badan oo malaayiin su'aashaas aad noo soo weydiinayay dhageystayaasheenu aad ay u daneynayeen haye bal sheekadaas naga dabageeya bismillahi rahmaani rahiim aniga oo ah maxamed qays ilka casib waxaan ka heesay sanka duudu shacabkaygana uu heeliyay aad iyo aad South Africa ka heesay South Africa iyo maqal shacabkaygana uu heeliyay waxaan ka heesay tahriibka aad iyo aad shacabkaygana uu heeliyay aad iyo aad badda iyo dahabka in la dhacayo ayaan ka heesay shacabkaygana uu heeliyay dowlado badan oo dowladda ka horeysay ayaan heeso aan ku toosinaya u qaaday oo dhaliil iyo ammaanba intaba isku qaatay xasan sheekh markuu soo galay heesii aan u qaaday ee ammaanta habanaya aad iyo aad heesii aan ku dhaliilayna waan haynaa dowladda maanta jirta ee shanta Soomaali markii ay soo galaysay doorashadii ama campaignkii ilaahay baan kugu dhaarshay daacad baa tahay ilaahay baad ka cabsanaysaa qof bini'aadamka ma cabsanaysaa waxaad ii sheegtaa hal fannaan oo Soomaaliyeed sheekada dhabta gaaraysaa wixii horta kaftani baashaal baheed hal fannaan oo waxaa ii sheegtaa campaignka igula jiray ama campaignki farmaajo ku jiray hal fannaan ii sheeg fanaaniinta hal fannaan oo Facebook live soo galay ii sheeg hal fannaan oo farmaajo ama shanta Soomaaliyeed ku taageeray oo campaignkiisa ka qayb qaatay ii sheeg hal fannaan oo xaaladda Soomaaliya ka jirta ka hadlay ii sheeg fanaanka kaliya arrimahaas hal fannaan oo shacabka Soomaaliyeed hees ugu yeeliyay ii sheeg oo caane astaghfirullah fartuun cumar dib aan noqono South Africa hees bay ka qaatay aad iyo aad heesa badan oo waxaa jira kuwa wadaniya oo la qaadi laakiin dowladdan hadda dhisan waxaa jirta fanaaniintii runtii u ololeynay madaxweynaha hadda talada haya maxamed cabdilaahi farmaajo nacam dowladdan hadda jirto nafteedana hore haddaan kuu sheegayaa walaalkii cabdinaasir aad iyo aad dowladdan ma oga aniga camal oo wadani ayaa xaniyihiisa ku soo saaray ma garat oo taageerayaashaada iyo dadka asxaabta ala tahay aad ku dhiirigelisay in campaignka ay qayb ka qaataan waxaa weeye farmaajo iyo dowladda qof laga xiga ma laha waayahay somaha aan ku dhammaystiray walaalkayga markii farmaajo saa loo doortay fannaan walba dhexda soo xirtay oo heeso badana loo qaaday maha brother qaara dhulka isla dhacay brother hoogaya baaye ayaa bilaabay heesu ma qaadan aniga heesii aan u qaaday ma soo daani hataa magarat heesooyga dib baan u dhigay waxaan dhahay maanta aniga guushii aan rabo waa gaare aad iyo aad oo qofkii aad lahayd aniga dalka u baahan yahay madaxweyne noqday meeshii aniga aan heesi lahaana fanaaniinta kaleeta ayaa dhaxay soo xirtay aad iyo aad markana qaatay brother nin guulaystaanahay aad iyo aad waan imaaday ujeedkaagu waa gaartay listen dadka qurbaha jooga ayaga xamar ma joogaan puntland ma joogaan khartoum state ma joogaan jubbaland ma joogaan waxay joogaan qurbahay joogaan wax xaaladda maanta jirto miidiyada ha kala socdaan aad iyo aad samaana u arkaan wax miidiyada maanta lasoo gelinayo laakiin xaaladda taagan maanta ma jiraan aniga maanta haddaan anuu madaxweynahaaga haddaan maanta sabir kula galo wadaniga weyn maxamed aan sabir la galo maxamed cajiib aan sabir la galo oo qof walba oo Soomaaliya aan sabir la galo oo aan u ballan qaado in aan wax u qabto aan waxban u qabanin aad iyo aad in adeer ma wax laga hadla ma oo marka heesta waxay tahay waxay ku socotaa heesta
shalaysaa aniga hasti farmaajo horta sheekan ku hayaa waqti badan magnaa malaya shanta soomaali inta aniga wareerinaysaa aad aad baan idin salaamaya shanta soomaali meel baa joogtaan waa idin jeedaa waxaan wax yar baan ka hadlaynaa fanaanka waa adduunka dhan fanaan walbo dowladdiisa kuwa wax ku toosiyaa jiro aad iyo aad oo mararka qaar laylaha la sheego loo sheega haa shalay marka aniga dowladda xasan sheekh aan dhalinay wadani dhalay waa leedahay libax laba maa leedahay marka ujeedka heestan waxay tahay waxyaabaha is leedahay dowladda ku dhalisan tahay darteeda loo sameeyey oo loo soo qaaday soo ma exactly heestan waxaan u suubiyey dowladda dadku way kala daran yihiin dadku way kala daran yihiin gabadha faa'iisa la dhaho oo xilligaha ah ciidanka militariga ka tirsaneed curyaanka ku noqotay aniga dogol ka soo noqonaysa ma ka sheekeyn karo marka gabadhaas markaan ka sheekeeyo caloosha xanuunta aad iyo aad waxay ka ballan qaadeen inay qaadaan waxba lamaha dowlad waaye gabadhaas marka in loo qaado waxba lama aha laakiin markuu ilaah yiraahdo ayaa gabadha la qaadaya ma garat waayahay marka waxay ku timid gabadhaas ayada waa la kala daran yahay ku dhahay meeshan qorshayaaro inay cunug ku qabato iyada tarq la dheelaysaa brada iyada tarq la dheelaysaa aad ma santaa ilka asi oo ku mahad celin